dowladda waa inay ka qaada gobolka shabeellada hoose ciidamana ma keeni karto dadka dhalinyarada u dhashay ayaa xaq u leh inay gobolka aaminkiisa iyo nabadgelyadiisa ilaaliyaan nin walaashiisa kufsanaya ma jiro nin hebelkii uu yaqaan walaashii kufsanayana ma jiro laakiin nin cadaada ka yimid gabdhayn intuu kufsado soo qabashana aad diidaan qorigana aad noo haysataan waan diidnay 4.5 iyo dawladdu ku dhisantahay 4.5 ciidamada laga dhigo nin walbana gobolkiisa hala geeyo ay keenin nin gobol kale ka yimid waxba igu ma laha aniga haddii kale waxba kama qaba haddii la leeyahay reer shabeellada hoose ciidamada gobolada dhexe la geynaya waxaan hubaa marka haddii la yiraahdo aniga dhalinyaradeeda inaan yeelin waayo meel nololba ma jirto kuwii lahabaa ka soo ordeenay hadda waxa ugu dambeysay shir aan maqalnay xalay in la saxiixay oo ahaa in ay beesha in ciidamada la kala qaado oo ceel jaale iyo carbiska la kala geeyo ma ahan taas waa in ceel jaale iyo cadaada la kala geeyo carbiska wax u yaal ma jirto mana degaan carbiska ilma aan dagaalamay waa ilma dagaalada ku dhashay beer muus uusan asiga lahayn ku dhashay odayga keenay goor buu dhintay marka ma oga waxay u baahan yihiin in la celiyo sida qaxootiyada loo leeyahay waa la celinaya ee dawladaha ay uga qayb galayaan maxaa la dhahaa UNHCR ta oo kale in la celiyo way oo dib u dajin loo sameeyo oo maxaan ku dhahay la wado oo la raro oo la geeyo la dhaho meeshaan leedihiin ay taagan tahay ma ahan wax af laga dhahay iyo wax toban ruux intay fariistaan warqado la saxiixo ma ahan baahida meesha taal waxay u baahan tahay ficil iyo in dadkan maxaan ku dhahay dib u dajin loo sameeyo ilmahan dagaalamay meeshaan odayga keena goor hor u dhintay waxay u haystaan inay meeshaan leeyihiin marka waxa loo baahan yahay in UNHCR iyo dawladaha xuquuqda aadamiga iyo dawladda Soomaaliya inay isu garabsadaan anaga xitaa aan diyaar u nahay in aan wax walba ka dhiibano in dadkan la raro dib u dajin loo sameeyo la celiyo wadanka ay leeyihiin la tusiyo iyo meesha ay degaan ee Soomaaliya ka degan yihiin intii labaatan jirka ahaa ee 20 sano marka joogay meel kale ma yaqaano gobolada dhuxul ka yimid ka aqbali maayo xaqiiqda meesha taalawaata marka hala yaabin in kan wax lagu soo akhriyay ee aydi soo dagaal galiyay ilaa tankii sana arkayuna sandooyin uu dhexmarayay aanu lahayn laga dhaadhicin kari maayo waxaad ka timi cadaado laakiin force markaad samayso magacaagii iyo dalkaagii iyo ilaalinaya maatidaadii ayuunbaa lagaa baqayaa oo xeef la yidhaahaya airport ka samaystay markaasay naagtiisiina balli doog lay qabsatay waa 2 warlord 20 sano waxay lacag ka qaadanayeen airportadaas naagtuna balli doog la haysatay isna halkan haysatay markuu lacagaystayna ugaas baa laga dhigay xildhibaan baa laga dhigay Nairobi u fadhiyaa maalin baan ku arko meesho mushaar kuma doontaa buu yiraahdo wax xildhibaan شهر كم مرة دون تاس الحديد بلد مركز مغناطو عمر شهر كفلايا سد هذا بيلدينغ أو دقيقة مو يلا بدك كله كسور شيء ده يسقيه كريزي سقاله كل يسيه كل جينا كينيا توي سمو قدام وين عارك تاني ستيت هاوس كا أكتي سوي برو يكيب سدي كوريا وح ومدة ماشي شوكتي أي نموذج إنه إن أي تد عادي هوي ما بيله نبى 10 years وها وورلو بحلي برعد بدل يعني أنت هساك عقب فلان هذا بنت إسكندرو كنت مليون أو US دولار هو هيستا هذا نوع اللي قال لي فيلم مستيشي دي والله حاجة يا قال فيلم بد مسيلي سايب مثلا أنت اللي سوق خيامي ما أنتوا بروسل إسكحري وكاسو ميرن تتكلم 11 phones have been